السلام عليكم وإذن سلامي يا إخواني وأخواتي والله الصوماليات waxaan jeclaa lahay inaan idiin sheego arrin wax aanan horey aan uga hadlin laakiin mar walba aan u fiirsaday aana jeclaystay mar uun inaan bal dadka Soomaaliyeed la wadaago arrintaas waxay ku saabsan tahay qabiil ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed ama beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed beeshaas oo runtii inta badan aan bogaadiyo qalbigana kala socdo oo ku saabsan beeshaas markay ay taagan tahay wadaniyadda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliyeed iyo in beeshaas ay ku badan yihiin intooda badan ama siyaasiyintooda ama hogaamiyaashooda ama hogaamiyaasha ka soo baxa ay yihiin hogaamiyaal wadaniyiin ah hogaamiyaal aan daba dhilifyo ahayn hogaamiyaal aan qarannimada Soomaaliya ku istaagin ka hor imaanin burburin markii ay maamulka hayaana si cadaalad ah oo wadaninimo ah oo Soomaalinimo ah u hogaamiya lacag aan ka aruursanin aan dhicin dalka aan boobin xafida qaranka iyo wixii loo dhiibay iyo dhulka Soomaaliyeed aan lagu baran inta badan daba dhilifnimo xoolo aruursi nin tooxsi badana ku taagan wadaninimo markii dalka ay hogaaminayaana dalku uu u jahaysto dowladnimo iyo qarannimo beeshan ka hadlayo aniga kama mid ihi macnaha hooyadeena kama dhalan ama hooyadii kuma abtirsato abaheena kuma abtirsado beeshaas markii la yiraahdo arrimaha beelaha iyo xurguftooda waxaa hubaal ah in aniga iyo macnaha beeshan ka soo jeedo iyo beeshaas dhibaatada isku geysteen ay ka badan tahay intii kuwa kale isku geysteen aniga ahaan qaraabadayda iyo ehelkayga inta wax ka soo gaartay oo beeshaas iyo dhex martay waxay adag tahay inuu yar yahay qof aniga iga badan oo dhibaato inta aniga iga soo gaartay xaggooda marka oo ku saabsan ehelkayga in uusan jirin qof iga badan laakiin aniga waxyaalahaas uma jeedo waxa aniga u jeedo ka hadlay waxa weeye dowladnimada danta Soomaaliyeed qarannimada iyo maaragtay xifdinta dalka iyo dadkan say nadiif u yihiin waxaan ku bogaadinayaa runtii oona leeyahay in haddii aad ka mid tahay beeshaas inaad hambaliyo ayaan macnaha waa hambaliyaan ku leeyahay beelaha kale oo Soomaaliyeed oo madaxdoodu ay caadaysteen kala qaybinta cadow adeega daba dhilifnimada hanti aruursiga dhaca dalka iska daba wareega waxaan jeclaa lahay inay fiirsadaan oo wanaagga dadkan ay ku dhaqmayaan oo kale ama u dhasheen inay ahaadaan runtii waxaana ku tali lahaaba in dadkan ama beeshan siyaasiyiinteeda iyo maamulkeeda loo daayaba dalka inay hogaamiyaan runtii aniga haddii la igala tashanayo ayagaan buu u day lahay maxaa yeelay waa dad intooda badan aan lagu baranin daba dhilifnimo cadow hoosaasin xifdinta dalka dhiska dalka dowladnimada wadaniyadda waxaas ayay macnaha caan ku yihiin beeshaas markaan sheego magaceeda oo beesha Mareexaan aad iyo aad ayaan ugu bogay siyaasiyiinteeda bal u fiirsha madaxweynayaashii ka dhashay iyaga oo dalkan soo maamulay lama hayo waxay dalka ka dhaceen
lama hayo inay dalka difaaceen maahane meel ay dabadhilif iyo dowlad iyo cadow ugu saxiixeen dhul Soomaaliyeed ku saxiixeen lama hayo. balse waxay u dagaalameen soo dhicinta dalka iyo xoreynta dhulalkana laga haysto ayay u dagaalameen. dadku qalad waa yeelan karaan, xumaana way dhici kartaa, laakiin wadaniyad ayay ku gaareen. ra-iisul wasaare badanaa ka dhashay oo dalka soo maray, markii ay ka haraan oo dowladnimada hayaanna way dadaalayaan, markii ay jagada ka degaan ama laga casilana shib ayay iska dhahaan, iyagoo lama arka meelaha wareegaya, iyagoo qaylinaya, iyagoo dowladda mucaaradaya, iyagoo meelaha taagan, iyagoo cadow shishay u dabagelaya, iyagoo lacag ka soo qaadanaya, iyagoo maaragtay samaynaya waxyaalo kasoo horjeeda qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya lama hayo. laakiin qabiilada kale way ka buuxaan. runtii dadka wanaagooda in la sheego ayaa fiican. dadka wanaagooda inta caadifada la iska daayo qabyaaladda, dadku Soomaaliyeed waxay ku wanaagsan yihiin waa in loogu hambalyeeyaa. aad baan ugu hambalyeynayaa. ma la arko qabqable iyo mooryaan cadowga inta u gala soo gelinaya dalka, lama arko. inta badan waa aragta xataa xuduudahay degan yihiin, meelahay degan yihiin waa la dulmaa. inta badan qabaa'ilada kale way dulmaan, dhibaatooyin badan ay u geeyeen, ayaguna damcan way u geystaan, way isdifaacaan. laakiin dadkan waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin dadka ugu nadiifsan Soomaalinimada iyo wadaninimada. marka waxaa la dhihi karaa dalka ayagaa iskale, sida runtii muuqata, maadaama intooda badan, ma dhahayo dad oo wada fiican yihiin, laakiin intooda badan waxay u badan yihiin dad wadaniyiina, dad xalaal ah, dad wanaagsan. waxaana rajaynaa qabaa'ilada Soomaaliyeed oo kale inay ku daydaan oo sida dadkan ay noqdaan. runtii aniga qabiil iyo qabyaalad igama aha, laakiin waxaan jeclaaday dadka wanaagooda inaan sheego. aad u mahadsantihiin.